waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho. Assalaamu calaykum daawadayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah casharadii ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga ama casharadii la xiriiray barashada luqadda Ingiriisiga. Casharkan waa qeybtii labaad ee casharadii conversation ama casharadii taxanaha ahaa ee aan bilownay dhowaan. Marka sida caadada noo ahaydba waxaan isticmaalaynay xarfaha A iyo P si aan u sameyno wada hadal laba qof oo sheekaysanaysa. Marka waxaa hadalka bilaabay waxa uu yiri it is nice to meet you. It is nice to meet you. It is ayaa loola jeedaa laakiin waa short form ama hab gaaban oo loo sameeyey. It is nice to meet you. Marka way wanaagsan tahay inaan kula kulmo. My name magacayga is waxa la yiraahdaa Jack. Marka aad bay u wanaagsan tahay ama way wanaagsan tahay inaan kula kulmo. Marka it's nice to meet you. My name is Jack. B waxa uu yiri I'm Steve. I'm Steve. Marka magacayga waxa la yiraahdaa Steve. It is a pleasure. Farxad ay ii tahay. Marka it is a pleasure. Farxad ay ii tahay to meet you inaan kula kulmo. It is a pleasure waxa weeye farxad ay ii tahay to meet you inaan kula kulmo. What was your name again? What was your name again? Magacaada muxuu ahaa mar kale ma ku soo celin kartaa marka? What was muxuu ahaa your name magacaada again? Again waxa weeye mar kale mar labaad ee la dhihi karaa marka ma ku soo celin kartaa mar labaad magacaada? Waxa weeye harfaxa su'aasha la isticmaalayo marka adiga aadan fahmin qof waxa uu ku sheegay ayaa la yiraahdaa marka wuxuu yiri what was your name again? Fadlan ama sorry hadda fadlan meesha kuma jirto laakiin waxa uu yiri what was your name again? Marka wuxuu yiri magacaada mar labaad muxuu ahaa ayuu yiri marka Steve ayuu yiri marka magacii wuxuu ahaa Steve marka so Steve haye Steve oo kale loo fasiri karaa sida ama sidaa darteed Steve so waxa weeye sidaa darteed waa laakiin hadda waxay ugu jirtaa Steve haye oo kale ugu jirtaa marka hadda so Steve oo marka what do you do for a living? noloshaada maxaad qabataa marka what do you do for a living? marka noloshaada maxaad qabataa marka I work waxaan ka shaqeeyaa at a public library ayaan ka shaqeeyaa marka public library waxa la yiraahdaa waxaan ka shaqeeyaa maktabadda public waxa la yiraahdaa dawladda ay leedahay marka maktabadda dadweynaha ayaan ka shaqeeyaa marka ayaa lagu fasiri karaa marka I work waxaan ka shaqeeyaa at the public library waxaan ka shaqeeyaa maktabadda dadweynaha marka maktabadda dadweynaha ayaan ka shaqeeyaa marka waa maktabadda ay dawladda leedahay ayaa leedahay marka public library marka how about you ayuu marka how about you marka adna maxaad qabataa marka how about you waxa weeye adna iska waran marka I am aniga waxaan ahay marka a university student waxaan ahay arday dhigta jaamacad marka I am a university student waxaan ahay arday dhigta jaamacad that is great arrintaas waa mid wanaagsan marka masa waxa la dhihi karaa arrintaas waa mid heer sare ah marka labadu waa isku meesha marka that is great it was nice meeting you waxay ahayd mid wanaagsan inaan kula kulmo marka it was waxay ahayd nice mid wanaagsan meeting you la kulankaadi wuxuu ahaa mid wanaagsan yeah marka waxa weeye ha oo kale waa ha it was a pleasure waxay ahayd farxad meeting you la kulankaadi wuxuu ahaa farxad ayuu ii ahaa marka ayuu leeyahay marka waxaan aanay conversation marar badan ayaa sheegnay conversation iyo dialogue iyo intaba isku mid waxa la yiraahdaa wada sheekaysi ayaa lagu yiraahdaa marka luqadda Ingiriisiga markii casharkii halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa laakiin intaan kala tagin waxaan dul mari doonaa keywordskii ama erayaashii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah to meet oo ah la kulan
ama markii laba qof kulmayso ayaa la yidhahdaa to meet. A pleasure waa farxad. Public waxa weeye waxyaabaha dowladda ay leedahay oo dadka ka dhexeeya ama dadweynaha ayaa public la yidhahdaa marka. Library waxa weeye maktabad. University waxa weeye waa jaamacad. Student waxa weeye ardayga ayaa la yidhahdaa marka. Marka erayaashan ayaa ugu muhiimsanaa casharka. Ha yeeshee laga yaaba erayo kale inay ku jiraan laakiin aniga aan xasuusinin. Laakiin kuwani waa kuwii aan islahaa waa erayaasha ugu muhiimsan marka. Casharkii halkaas ayuu ku egyahay. Intaan cashar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Fadlan kasoo bixi comment haddii aad wax ra'yi ah aad wadatid ama aad doonayso mowduucyo gooni ah in laga hadlo, isla markaasna wixii talo iyo tusaale ah fikirkaada xor ayaad u tahay. Haddii casharada aad ka heshay fadlan ku xirnow kanaalkan, sidoo kale asxaabtaada la wadaag.